guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland iyaga ka qabaday magaalada Kismaayo doorashadiisa degan bareed oo kumid ah kuraaso golo shacabka isla mar ahaantaasna 40 sano oo hadda dareerta ka metela doona maamulka Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya gambareedun geeka doorashadii oo la qabaday magaalada Kismaayo iyo waliba iyo shal hayana 120 illi oo saaka bahi wasiir Xasan Xuseen Midey Xasan Eelay oo wasiirka baabuurta dhulkii irke maamulka koonfur galbeed hoob 127 may baaha ka bahay Dr. Ahmed Eedin Ahmed kuraastan ka dambeeyay oo hayti 118 waliba ha ka bahay Yusuf Madey Ismaaciil kureed markii uu tanaasuli musharaxii la tartamayay in korentii musharaxiintii lagu guuleysadii dareenka sidoo mandhaki halka waxaan bali ugu dirayaa Xasan Xuseen Maxamed oo kursiga ku guuleystay waxaan ku qanacsanahay natiijada soo baxday waxaan rajaynayaa alla ugu baryaa insha Allah isagana in uu Ilaahay la garab galo xilkaas culus loo doortay 4 sano soo socota inuu nagu matalo kursiga nambarkiisu yahay hoob 126 waxaan ku qanacsanahay natiijada ka soo baxday doorashadan ku dhacday sida quruxda badan waxaan guul u rajaynayaa walaalkay Dr. Ahmed waan kula shaqeyn doonaa 4 sano soo socota saasoo kale xildhibaanadii geeka laga doortay magaalada Kismaayo iyo in ka horreyntii mahadnaqay ergooyinkii codka kalsoonida haysiiyay wali kale fadayeen aan mahadnaq dadkii ehelka ay qaraabada hay oo hiraabta codka nasi dhamaantiyo boqolkii qof odayti walilanaayoon eedeeda mahadsantiin ilaahayna wali warsadaane insha Allah ta'ala innaga kursi marka koowaad leen ka shaqeeyo Soomaaliya oo idil marka lamaadna leen ka shaqeeyo dadka doorada insha Allah innaga door rajayaan eedeeda mahadsantiin hiraabta hadee la dooraday gorod kortaana la isku faraxsan dooga ma badii karo guddiga doorashooyinka sid dowladgoboleedka Jubbaland iyo midka federaalka ee soo qaban qaabiyay barnaamijkan iyo hawshan muddada dheer adag ee xilliga lagu jiro waliba waxaan leeyahay idinka hawshiin waad gudateen annagana kuwii hawshooda iyo xilkii loo igmaday guto alla waafajiyaan Allah naga dhigo waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa beelweynta reerka halkaas igu codeysay inta kaleba inka dambeyntii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Siyaad Madey Mursal yaa faahfaahin ku bi siyaabo idinka shal guuleysadii waxaan halkan u soo istaagay inaan si kooban u gudmaro shaqadii aan saaka halkan u nimid doorashada kuraasta kala ah 126 118 iyo 127 kursiga markii koowaad ugu tartamay wuxuu ahaa kursiga 126 waxa ku tartamay Xasan Xuseen Maxamed iyo Cabdiraxmaan Macallin Xuseen waxa ku guuleystay Xasan Xuseen Maxamed oo hadda laga bilaabo xildhibaanka matali doona kursigaas ku matali doona aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya insha Allah kursiga labaad waxa ku tartamayay Ahmed Aadan Ahmed iyo Cabdulqaadir Cabdullaahi Xirsi kursiga nambarkiisu waa 127 waxa ku guuleystay Dr. Ahmed Aadan Ahmed oo noqon doono xildhibaanka kursigan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kursiga saddexaad ee lagu tartamayay wuxuu ahaa 118 waxa ku tartamayay Yusuf Maxamed Ismaaciil iyo Umar Maxamed Umar waxa tanaasulay doorashada intaysan bilaaban Umar Maxamed Umar sida daraadeed Yusuf Maxamed Ismaaciil ayaa cod gacantaaga loo qaaday waxaana loogu codeeyay 101 cod wax diidayna ma jirin wax ka aamusayna ma jirin kulli gacanta loo taagay sida daraadeed waxa kursiga ku guuleystay Yusuf Maxamed Ismaaciil 101 cod hadda laga bilaabo asaga xildhibaanka kursiga ku matali doona dowladda baarlamaanka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya Idriis Maxamed Xasan warteelka Arlaadi Kismaayo